gabyaagii weynaa ee la oran jiray maxamuud cali beenaley oo ka mid ahaa galbeedka geyiga soomaalida dadkii wax ka degi jiray inta la hubana nolol ku soo gaaray dabayaaqadii 1930 qarnigii 20aad. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa maxamuud loo keenay tix gaabanoo isaga lagu maagayo taasoo dhab ahaan isla nimankii u keenay ay tiriyeen iyaga oo ku masabidaya qolo kale oo uu garanayay asi ay markaa degaanka ku kala fogaayeen. aan si yara faahfaahiye waxaa baryahaas gabayo isugu halcelinayay nimankii tixdaas masabidka ah maxamuud u keenay iyo qolo kale oo ay rabeen inay ku diraan dabadeedna markay fooda isu geliyaan uu iyaga dhinaca saaro maansadiisana uu ugu hiiliyo. warbal tixda iigu celiya ayuu nimankii u keenay ku yiri. markaas bay yidhaahdeen waxay ahayd inta bari jirta iyo reer warfaaha isbahaysteene ballanqabaha doolaal jiciir ha isku badiyeene biid hadduu u tari beenaley ha isku biirsheene. maxamuud cali iyo nimankii loogu sheegayay tixdaas daandaansiga xambaarsan inay u soo dhiibeeni weligood wax xinif maanse ahi ma dhex marin. markaas buu garan waayey wax uu kaga tala galo. si uu u rumaysto iyo si uu u beensado midnaba waa laga madoobeeyey. dabadeedna wuxuu go'aansaday hubsiina hal baa la siistaa waa tii la yidhiye bal horta inta aanu jawaab celin inuu kaadsado oo korta oo arrinta si hoose ugu dhabbagalo. maalintaas buu tiriyey gabay hanjabaad miirana si aanu cid gaara wax ugu dhibin, gabay ay ka muuqato in ciddii tirisay ay eedi doonto oo ay ku guban doonto dharaarta ay u caddaato ciddaasi midda ay tahay. marahayga waa gabayadiisa midka ugu caansan ee soomaalida qaarkeed ay ku garan og tahay dhextaalkii uu u yeelay ee ahaa armuu gabaygu baabkii noqdaa dunida baaweeyey. waxay kaloo dad badani ay gabaygaa ku xusuustaan laba meelisoo meel dhexa kaga jira aadna la isugu wariyo, kuwaasoo ah beentiiyo runtuba waa dhow bay kala baxayaane aan baxnaansho xaajada kobtii barida loo saaro. runtii inkastoo ay habboonaan lahayd gabaygaas quruxda iyo quluudda miirana inaan wax idinka maqashiiyo, haddana maanta isaga dulucdiisa diiradaydu ma saaree waxay saaran tahay arartii uu ku gardaadiyey ee uu ku muujinayay aqoontii uu u lahaa degaanka soomaalida iyo weliba carre edegta ay baduhu u dhaxeeyaan sida dalalka carbeed qaarkood. wuxuu arartiisii maxamuud ku yidhi, awal maanso waataan ka baxay birimadeediiye waataan ka baalmaray tixday bala ka oognayde wax i booqday mooye haddaan soo baraarugaye xalaa baabisada lay akhriyey goor habeen balahe beled weyne baydhaba iyo xamar baydisliya koonfur bulaxaar berbera saaxil iyo buuryar iyo awdal burciya looyo baargaar hobyiyo badaha liilkooda basra iyo xudayda iyo maka iyo cadan bataaxeeda bohoraha hawaas iyo jigjiga beledka nairobi bay nimanka yaaliya intii bidix u sii dhaafsan baali sheekh xuseen iyo arlada biraha loo jeedo dadka badan anuu ii yaqaan baabka maansada ee badweyn iyo waxay igu og yihiin bilicdi geeraarigu. wuxuu yidhi, xasanow hub qaadaye haddaad naga hagaagayso hiyigaad ka sara joogsatay oo hiratay laabtii haddaad hiirta waaberi sangaha harabsatoo fuusho hilinkaad ku dhici waa midaan laga habaabayne waatuu haloosiga ahaatan iyo hiiraane ha yeeshee waxawd lagu yaqaan haw kariyo oone haddoo aynu joognaana waa hoga kaliileede habaas idinku duula iyo boor hiriba mooyaane alli harada noo buuxin jiray kuma araadsiiyo hinni awdan xagar huurahoo halow ka soo duuli hunriga iyo kuleelkoo sidii horac ku leefaya hagoog layra harac kaa astura lagugu hoosaasi hurgungocandho hiil qodaxle iyo hiijo iyo qaare hurmood gubad leh dogob huuralow hadagu naafteeyey hirigtaad maraysiyo jirduhu kuma halaakeeyo. intaas oo keliya ducadii uguma ekayne wuxuu haddana eebbe uga baryayaa inuu ka indhasaabo dugaaggii iyo duurjoogtii waagaas dhulka soomaalida ka buuxi jirtay haatanse gabaabsiga ku ah sida wiyisha geriga qalanjada maroodiga dhurwaaga shabeelka dawacada weerka
yeyda halaqa waabaayadiisa dadka ku laaya iyo garowga cidiisa la sharaysto ugu dambaystiina waa kii wadaadka ahaayee ma uu iloobin xasan iyo ergadaba inuu u xirsixiro gaar ahaanna suuradaha watiin iyo liilaafi quraysh uu balaayo xijaab uga dhigo wuxuu yidhi wiil hagaf leh aar soo handadi hiija qaba reemay hirdi madax hankoobsiga ciddida mixi haliilaysa hurdangeli haraatida lugeed qalanjo heeraaya hunnufaa dhulwaa iyo dugaag si uu haraaqaaya shabeel horora hayrabo dawaco haram cadguuxaya dhidar harab leh halowyaalo weer haalufada yey ah bahal hoose halaq baas intii hediya waabayle haawayda meertiyo colkiiyo haayirkiiyo tuugga galow hirrifle iyo jugley wadana hawhawle weliyada hanuunaan bariyey iyo hodanka yaasiine habheebaha jidaasha iyo daal hanaqgo'ii dowga habeen iyo dharaar ee bahay hadima kaa baaji hor iyo gees hareer iyo gadaal halal nabaaddiino hoygaagu heeraar watiin hoyasho liilaaf leh hayaakiil ducaan kuu naqee hibada aaminso barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta dhegaystayaal halkaa ha inoo joogo